بسم الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لما سومالي وين ميل بعد دنيا كجوكتان الله وين وحنا كود رجينا يا عافمات يا عبادة الصوبن يا عمل خير متكسر مراد له إن بهم مراد كيسمت خير ودي وكو حنوصلنا وعافمات ها مسيو كان جريو ذي جلدي وتقونيد هو ويلا كل هي جريو ده سمر إيمان وكسي يكو ده شايسته باي ده شهو بركة يكو ده سوغاين ده بدن وبركة سنسي أمر هذا الكيني أنا بدي بالشو سومالي وين وبدنا الله وين ودي سنة يتنور جوكتك على بركة ويفريس شاحن أنا صار شفت يتي نديم نرجع بيرستينا أجوجين وهذا جماعة يدي بركة من سبسكرايب تصير برامج كان مانتا waxaan ku soo qaadanaya iyo kaga hadlaya odayga Xariir Axmed bishwa toddobiyo toban maanta maalin bal ugu beega taas ahaatee tafaahada haysta xawalay oo ay dili way ka lushaan waxa weey adanaha kolka la tilmaamo ee bahay abuuray rag dhulka kuma heshiiyo oo xilka kuma heshiiyo adduunka taladiisa sababtuna waxay tahay rag dhulka laga abuuray oo nin kasta oo walaalkii maanta haday dhul isku qabtaan u deyn lahaa waa dhif iyo naadir qoriyo soo wada qaadanayaan way ku diranayaan dumarkuna rag kuma heshiiyaan oo ragga laga abuuray oo feedha bide xawaatii laga sameeyay marka waxa weey xawaleydii oo idle Xariir bay haysataa intay dhamaayeen wixii aragtiyaan oo halka ku falanqeynay waxa weey inuu guda gala barnaamijkeen waa mido arrinka kan maanta dhacay iyo tilmaanta aad arkaysaan awal waxa ay hablaha qurbaha jooga inay ragga Afrika jooga dumarka ay ka qaadaan oo sidaan og soo dhaay khadar silib waa loo soo dhacay هذا عبد الرحمن بقى أصور دعضي مرق يا مرخاتي بس كتير أنا وأنا وقتي أنا هرجيس الجوجي جوريجا مقرنة ساي خضر السلام يمرسل موسواتي بقول لي كتك أي دجناين ولا يران صاحبنا هباك هاي جوريجا شاليكي بعد بس جوجي حقيقة دي وحن غير يا ولا يسوي تاجي يا مالت قيامة خضر السلام إني نك هذا شاوي شاهدته بالعين بانكو وروح عنكو يري بكيريga oo biyaha ku cabay bakeeriyada kale way ka duwanayeen iyada uun baa u keenaysay kowde shaxshaxda iyo ninkaas sida kor loogu qaaday karaamada iyo jacaylka gabadhaas uu haysay 24 habeenkiisa soo maraa musalsal hindiya ah ay shinaaba khadra silma say ugu lamaanta iyo xaaji maxaan ku keenadaa san doollar cad iska qaaday baa loo soo dhac isagoo bariga wuxuu haateenin lamaanihiisa oo ugu daryeel iyo kalgacal wahay asboor Mareykan meeshii ya هستي محبد الميان دومر كل السماء نفتي إذا دلاد قبل دعيبان وحاطبة أنك رجع إنه جورس دعيب معه إلى هيبقى وبنية مثلنا والثلاثة والربع أنت لما قلها هبل بعم برا حالان وقتي أما مقرر يساعد متقرع كذا ما يحب جورس أساعته inaad ka doodo mid kale ka aado wada marxum inaad isku haysato ayaa habo hadii ay midi joogaysan waxa la muhuraana tiilooyin mar walba inay joogto taa kolka laga yimaado heesaa kan amaanta oo haweenka lagu amaanayo oo cidi kaama sareyso leeyahay mursal baa hore u qaaday qabar suugaani baa isaguna sidaas la mid qaaday dalmar yara qaaday adarade wixii soo baxay xaal sidoo ha ilaahba maanta waa Xariir oo dadku waxay ku haystaan heesatan oo magaranaysaa وقاعدة نجمو يكلي بان كوا أهانا يوحي وابين هذا ما حالتي أهيد إن هوين كقربها جوجا أي رجع كقاعدان كوا أفريقيا جوجا لا يسكون فهن كوا أفريقيا جوجي أي رجع واحد كقاعدة يعني هوين كقربها جوجي وعرير إنك جيجلا جوجتو أو يلا جيب على صنيع رجع وعوية هوين كوا واحد وضع تلمان صنيان أو وضع إشارة نيان أو وضع دليل يان نكلا يلا حرير لكن هويرو سؤال بني ويدي حرير إيش عادكو أركتان maxaad ugu arki weydeen tan gabar ee guriga soo gashay ilaa isagu Xariir ooridiisi baa ka maqan ilaahay kuma darnaadee xaqiiqada macna runta marka la sheego aniga it's not my business laakiin aragtidayda marka aan ka hadlo gabartan wixii garo lama horaan isaga tiisan aanu siinayno teedan aanu siinayno waa mid oo Xariir ilaahay baa u baneeyay inuu guursado ma sinaysan ma macsiyaysan maanta waxa ka sii falxumaan lahayd inagoo maqal lahayn Xariir baa inan uureeyay oo xaraan ugu tagay taas ka falxumaan lahayd waxa ka falxumaan lahayd Xariir oo intuu xaraan sameeyo xanuun soo qaado gabadha maskiinta oo Mareykanka joogtay intay soo dhoofto ay xanuunkii ka qaado taas ka darnaan lahayd laakiin intaasoo idil intuu dacal maray ayuu dariiqi ee bahay jideeyay ee diintii raacay oo gabar guusay marka waa mid oo hadaad cid qabsanaysaan gabadha qabsada ileen iyada ogeeydo guriga soo gashay Xariir gaf iyo gardarra ma sabay hadii dhaliil aan wax ugu yeelay Xariir mid baan ugu yeelna oo waxa weeye bomboniska isagoo aan aqal gelin
gabadhiisi hore joogta inuu yiraahdo bisha Heblaayaan guursanaya 10 maalmood kadib baan guursanaya guurkeygii baa soo socda de asbuuc hor baan ogaan 17 bisha inuu guursanayo taasuna gabadha madax iyo waxa weeyaan hadin bay ku ahayd hal mar inuu ka soo dalaco ayaa ahayd haduu wax sameeynayo laakiin nabaraad ogtahay ayuu gabadhi kaga dhigay taasna waxa weeye de dib uu ka saxaya marka dadka Soomaaliyeed ee reerka buuqa dhex dhigay ee xariir baa guursaday ee gabadhii heesta loo qaaday war waxa weeye labadii istoortay ku heshiiyay doo hal hel dardaraanay kala dilama way shaydaanka u horeeyo iyo aadane ma garanaysaa de u adeegay islaam baa hadda hore waxa laga hayaa ninkeedii ayaa wuxuu guursaday gabar kale dadka cambarooyin kala u yimaado waxa dhaana la ninkaaga wuu guursaday inaan fadhi kuumaya ninku naa kala u qaba way qosashay waxa tirwaan uga hayska day oo miyaadan damiir lahayn waxa tir mid baan idin sheegay dhigiis ninkaygu gabadha cabsi buu ku guursaday kawda haddaan dhawriya naag baad guursatay oo seebaad u guursatay oo caroodo oo guriga ka cararo iyada habeen imaan la soo saxdo ka warbe hadda aamusnaanta aan ka aamusanahay wuu iga cabsanayaa bay tir oo iyada nusaac iyo buu la soo joogaa asbuucii ama ma garanaysaa ayde saacad aniga sahari habeen baa ka eeg jooga habeenkii ii soo saxdo marka haddii aan qayliyo habeenadii baa la qaybsanayaa bay tir qayl maxay taris gabadha walaashay najax wax leey walaashay ninkaagu dambi ma uusan fanaaniinta inta ay qabaan inta uu qarsoon baa ka badan mid iyo labo ilaahay wax gaar dheefsiye ma oo ma garanaysaa xaasaskooda xushmooye ma magaalada ay tagaan naag bay qabaan xafladda ay tagaan ba xaasas bay leeyihiin kuwa arkaysaa aan waligood xaasaskooda u tigin magac ma garanaysaa shaabadahan ugu dhigay kuwa arkaysaa baan ku yiri habeenkii arooseen habeenkii xigay inta adduunyo kala aadaan bil ku maqnaado oo halka ku tunto waxa way ku tamashlay gabar buu xalay ma habeen hore guursaday bil buu wuxuu ku maqnaa magaalo kale iyo wadan kale ninkaagu marka uu gabar qabo oo aad ku ogtahay macsi buu ka badbaadaya xanuun buu ka badbaadaya shar buu ka badbaadaya ka waran ninkaagu waxa ka qarin lahaa oo quursi sameyn lahaa iyo waxaad ka naxdo oo xumaan iyo macsi iyo shar iyo naxdin sameyn lahaa haatan ninkaaga haduu ka maqayay tiwa mid meel ku jooga sharna aan ku maqnayn haddii uu taabiilkeeda karayana waxaad ku saluugto iyo waxaad dhageysato aadaraha kan warkooda yeesan jirin yana ku sacabto man haweenka kanubaan Allah wala guursaday ragga Soomaaliyeed war ragga Soomaaliyeed ninkii mid guursanayo ilaahay ku qanciyo alxamdulillah kuma naanba jira xaasaskooda waxa weey dhinacaan u dhaafin duqlaho waxa weey dhalin leh hadduu ku labaysanayo oo karayana ilaahay baa u baneeyay inuu goormaan wastareen noqon cadaanka iyo ajnabiga kanaad arkaysaan oo aad iska dhaadhicinaysaan inay haweenkooda ku ogyihiin inta macsiye u qarsoon baa ciida ka badan inta sino iyo macsi ay sameynayaan gaal fareena kala la ogeyn bay leeyihiin marka waxa weey gabadhaana jacayl leey walaashay guriga kan awalna aada hore u joogay haatana waa lagu yimi hadii lagu yimina macnaheedu waxa weey madaxdii sharanaada maanta adiga waxba dad kan buuqooda iyo ishaaradooda khaldan iyo yana tilmaan ku noqon ninkaaga iyo qoyskaaga hadii waxa weey uu ninkaagu nin dhaqmaayay yahay oo sharaf iyo wanaag kugu haynayo oo waligeeda la isla guursan jiray reerkaaga dhaqo kowdhe yaana dadku kugu waraman yaan lagu niyad jabin hooyooyinka Soomaaliyeed ma cid ka karti badneed baa jirta ma cid ka garasho badneed baa jirta ma cid ka qiimo badneed baa jirta saas ay tahay waxa weey deemid iyo laba iyo dhowr mooyaan badi waa la wada guursaday saas ay tahay wax ka dareenaya dadnimo badnaa oo xanta ay dhalaan iyo waxa ay dhalaan kuwa nasab iyo wanaag ah aqal xumaan markuu arka walaashay gurigaagii inta lagu soo galo inaad ka cararto joog baroosi ka dhigo adiga ha laga cararo ee adigu ha cararin waa tan kale xariirna waxa leeyahay war dariiqi aabahay jidu raxmaan ku tilmaamay baad martay reerkaaga isku dhabo oo gabadhaas waxay xaal iyo xurmo mudnayd ablu waa maseeri jireen waxa way waligooda laga waxa way xaaladaas ay dhici jirtay dusheeda dahab dhig hees kale tan ugu soo celi yaa ila taa cusubna waxa leeyahay haddii aad reerka mushkilo u soo gashay ilaahay sharka ka qabto haddii uu dareen iyo raxmaan wuxuu qadaray ee calafka ahayna adigana waxa way ilaahay khayrka ku waafajiyo lamaani is jecel iyo guriga qurxan baan halka ka rajeenaynaa Soomaalina waxa leeyahay war raxmata shirku ma wacnaa dhanka khayr waxa laga eego barnaamijkan oo kale inta dib ugu kulmeena warsan war khayr assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh